bahda hidaha dhaqanka iyo dhalinyarada ee Murtimaal waxay kusoo dhaweynaysaa gacmahooda marnaba ha moogaan inaad soo badiso shabakadaha jire.com iyo murtimaal.com. labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey marka la eego ma ahayn waxa ka burburay Soomaalida haykalkii dawladnimo iyo hanaankii iyo kala dambeyntii maamulka balse dhaqamadii iyo caadooyinkii ay dalkan lahaayeen ayaa wax badan iyagana iska dhimeen. markii maal laga hadlayo in lagu khamaaro ayaa uu qaraar yahay hase yeeshee marka nafta lagu khamaaro waxay u ekaanaysaa dambi weyn in la gelayo. waxaa soo baxday caadooyin ay ka mid yihiin in qofku isbiimeeyo oo uu naftiisa ku khamaaro isagoo arkaya mahlakada ka horeysa iyo in uu ku talagalo ama dhimo ama badda dhaaf. nidaamkan oo tahriib la yidhaahdo waxa ku kaalmeeya dadka gala caa'iladooda kuwa ay wax isu yihiin qaraabadooda iyo weliba asxaabtooda. hase yeeshee bil kasta daroor ayaa soo yeeraysa deegaan kasta oo Soomaaliyeed khusaysa oo lagaga hadlayo ama loogu darooranayo dad markii hore la ambabixiyey markii dambena haligmay. labadii toddobaad ee ugu dambeeyey magaalada Burco waxaa taagan dhiilo weyn oo ku saabsan 40 qof oo la wada garanayo oo magaalada Burco u dhashay oo ka ambabaxay dalka Liibiya oo doonyar oo kharaaba ka raacay 18 bishan aynu ku jirno oo ilaa ay hadda raq iyo ruux meel ay dhigeen jaani cirib lala yahay. dadkii ay ka soo jeedeen habeen iyo maalin ma seexdaan waxa ay tuban yihiin goobaha isgaarsiinta internetyada iyo telefoonada iyaga oo tuban ayaan waraystay bal shucuurtooda inaan wax ka ogaado iyo xaaladoodu halka ay ku sugan tahay. waxaan marka hore weydiiyey gabadhan magaceeda iyo bal inay iga wararto dareenkeeda. waxa la yiraahdaa Leila Xasan Ismaaciil waxaan ku magac dheeray Leila Fircoon taas oo walaalkeen way walaalka ku jira marka hore inta badan caa'ilooyinku way tabantaabiyeen dadkan tegay adduun baa lagu bixiyey guryaha loo iibiyey iyo gawaadhi iyo wixii la kari karaba. hase yeeshee marka la waayo murugo iyo ciil badan ayaa imanaya. ma isleedihiin qof dambe haydi ka tahriibo? may ismeelihi qof dambe ka tahriibo meel la ka maro ilaahay ka dhigo. waa tahay waxaa kale oo isaguna kamid ah dadka aan waraystay magaca Rashiid Axmed Xirsi Rashiid Abraas aniga uu maqan yahay walaalkay Cabdullaahi Axmed Xirsi Cabdullaahi Abraas waxaan jecelahay in radayo ruux wuxuu noo ka warramo 11 habeen iyo 10 maalmood 20 caanamaal ayaan meel walka Stoke Station iyo lambar taaganahay wax war waan kalaanahay. marka inuu nool yahay inuu dhintay wax wixii war ee aan ka heli lahayna waan kalaanahay. marka waxaan jecelnahay inaan nolol ku helno haddii aan weynana inaanu warkiisa buuxaan helno. muddada ay dadkaasi maqlaayeen dadkii dhalay iyo dadkii u damqanayay ee ay ehelkooda ahaaba waxaan weydiiyey bal xaaladda waalidiintii waxa ay ku sugan tahay. sayna waxaad igu tiri waa daran yihiin waalidiintii ma garan karaysaa qaar kamid oo adigoo aad taqaano oo xanuunka iyo murugada ka haysta ubadkooda maqan gaar ahaan hooyooyinka oo dadan adigu ma garanaysaa? badan baan garanaya welidadan oo socon kar waaye oo daal iyo maaragtay naxdin iyo maaragtay hadallo kala badan oo kala gedisan oo loo geynayo markasta guryahooda iska fadhiya oo samri raba maaragtay ay ku sii murugaysan yihiin waan ogahay waanan garanaya badanna weeye dadkuba waa inaynu garanayno oo wada hebel ah. waxaan haddaba u dhabagalay inaan waalidiintii qaar ka mid a la kulmo. waxaa ii suura gashay inaan la kulmo oday waayeela oo 80 jir isagu ii qirtay laakiin igalaba daaweynaa. odaygaasi oo inan uu dhalay iyo inan ay sii dhashay ay ku jireen doontaasi islamarkaana aanu haddadan haysan cid u adeegta oo ay iyadu gacanta ku hayn jirtay. waxa uu iga warramay quluubtiisa. waxaan ahay Maxamed Cali Cigaal. dareenkaygu maanta ma wanaagsana. sababtu waa maxay? adduunyada isgaarsiinta intaa la egle oo aanan iminka dee 12 casho dadkii waxa la wuxuu ku eedeeyay aanan hayn dhimasho iyo nolol midna 80 jir baa hooyada ii shaqaynaysay. waxaabaan iminka isleeyahay adigaaba wax lagaa saaray. sababtu waa maxay? waan ku waday iska joog baalade dee ma wanaagsana dareenkaygu saas uu xuliyay. waxaa muruga leh caruurta yaryar ee caydiga ah ee dadka tahriibay ay ka tageen
awowgiibuu ag fadhiyey xamse oo 5 jira oo ilanta odaga dhalay ay dhashay ayna ka tagtay iyada oo kaxaysatay mid kale oo 7 jira labada wiil oo kaliya ayayna lahayd inankii yara waxa uu marba eegaya afka dadka ka hadlaya amuurtan iyada isagoo aad u qiiraysan si kasta ha ahaato maaha barnaamijkani mid weli dadku ay ka xiisa dhaceen iyagoo og maalin walba waxa dhacaya ayaa haddana waxaa jira baroortaa guriga ku xiga guriga laga barooranayo ka ku xiga iyo ka kusii xiga oo dad kale hadda loo wado tabaabushihii badda lagu marin lahaa ee lagu tahriibin lahaa xuseen oo jaabac jibriil BBC Bro